maanta waxaan booqanaynaa magaalada Augsburg ee ka tirsan gobolka Bayern ama loo yaqaan Bavaria. waxaa maanta magaalada marti ugu ahay saaxiibkii Xuseen Ibraahim Ciise oo magaaladan wax badan ku nool. wuxuu igu wargeliyay magaalada inay ku taalo xaafad taariikhi ah ee lagu magacaabo Fograi, halkaas oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 150 qoys ama ay ku taalo 150 apartmenti. kiradana ay bixiyaan sanadkii 88 senti. waa in ka yar koob kafe ah wuxuu ka joogo meelaha qaar. isafgarad kadib waxaan isku afgaranay inaan aadna xaafadii. ugu dambayn waxaan imaanay Fograi. halkan hadda aan taagannahay waa afaafka hore ama albaabka laga galo xaafadda Fograi. taariikhiyan xaafadan Fograi waxay jirtaa in ka badan 500 oo sano. waxaa la asaasay sanadkii 1521. maadaama dalxiisayaal fara badan ee dunida meel walba uga imaanayaan oo ay tahay meeshu meel taariikhi ah, waxaa qasab ah inaad imaato marka hore xagga hore kana qaadato tikidkaaga. waraaqadan informationka waa halka aad ka helaysad macluumaad fara badan ee ku saabsan meesha. macluumaadkii kadib waxaa noo soo baxday aasaasaha halkan in la yidhaahdo Jakob Foger. ugu dambayn booqashadeeni halkaas ayay ku soo dhammaatay. haatanna waxaanu laabanaynaa halkii aan ka nimid. waxaa inoo ballanah kulanka xigo iyo muuqaalka duwan.